السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوين هورا ظاهري أنا كاهن مدحوين كحجنا هورا شرقدون كلبضة قوله محكمة السراء حرالية هجود قولها وزير هذا مشرح حزب الوطني قدوميها حساب تقرنك يقرر قدوميها حزب الوطني يمرشحي سبع ترياش إذا ماذا قلب كسي كردون دبلوماسيين تدقن dalka Soomaaliland ee ka soo qayb galay xuskan wufuud caalamiga ah dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad u hambalyeeyaa dhammaan shacbiga Soomaaliland meel ay joogaanba dalka dibadiisa iyo gudihiisaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland da kastoo yihiin rag iyo dumar meel kasta ay joogaan bishii u dambeysay wadaninimada dal jacaylka iyo difaaca dalka iyo horumarkiisa u jecel yihiin ay isu abaabuleen ay u muujiyeen nacabka Soomaaliland awoodooda iyo xoogooda iyagoo tusaaya in Soomaaliland tahay 3 jir waa marka qofka bini'aadmiga maskax iyo muruq ugu adag yahay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa meel aad joogtaanba gaar ahaan da'yartii dhalatay intii dalka la xoreeyay dareenkooda aad iyo aad u kacsanaa waa ka mahadnaqaynaa haddaan nahay odayaasha dhammaantood maanta 3 sano ka hor baa dalkan dib loo xoreeyay taariikhda waa la wada hayaa ku dheeraan maayo badanna waa la joogay 1960 Juun Soomaaliland qaadatay xorriyaddeeda dhowr iyo 40 dawlad baa ku ixtiraafay oo soo hambaliyay 26 Juun ka bacdi waxa fariistay golihii baarlamaanka ee Soomaaliland halka la yiraahdo goodirka iyagoo oo ka duulaya tibadii bariga jirtay ee shanta Soomaaliyeed in la isu geeyo waxa Soomaaliya ku hadda ay qaran uga noqdaan oo lagu soo urureeyay oo shanta meeloodba ay Soomaaliya degan tahayba ay tibadaas ka wada socotay Soomaaliland oo ugu hor qaadatay xorriyadda waxay ka dhabaysay balantay Soomaaliya ku balantay ee ahayd in la isla doono shantii Soomaaliyeed sidaa darteed iyada oo aad iyo aad u qadarinaysa ololaha Soomaali jacaylka ah dhibaatada u badan iyo martida u badan iyo halganka u badan iyo dhaqaalaha u badanna la hubo inay ahayd tii Soomaaliland u hoosaytaa ayaa go'aan ay gaareen baarlamaanka ay leeyihiin waa in maalinta walaaladeen 1 Juulaay ay qaadanayaan xorriyadda awlabadowna wixii kala waxa inoo dambeeyeen hal xeer bay gudbiyeen oo ahaa xeerka midnimada sida lagu midoobayo labada dal xeerkaana way sii qaadanoo diyaaradda raacana waa u geeyay qolada talyaanigu gumaysanayay waxay 1 Juulaay markii la isu tagay xagga iyo xaggaaba bay igeen labadii baarlamaan bay isku dareen gudoomiyihii baarlamaanka waxa loo doortay in reer Soomaaliland diirqara isla habeenkii waxa la dhaariyay madaxweyne ninkii loo jiray Aadan Cadde laba dhowr maalin ka bacdi dowladdu soo dhisay Aadan Cadde dowladdaas waxay ka koobnay madaxweyne ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo 14 minister 14 minister saddex baa Soomaaliland laga soo yuubay waa cad quran 12 wasiir oo ay ka mid yihiin wasiirka khaarijiga wasiirka daakhiliga iyo كماليدو وحقاتي قراري تياري waxa Soomaaliland dawladda ka soo gaaray gudoomiye wasiir ra'iisul wasaare ku-xigeen xasan Buuri iyo gudoomiyihii baarlamaanka qaraar iyo 3 wasiir oo kala ahaa wasiirka tacliinta Cali Garaad maxamed xajraaci ruuxa difaaca iyo Axmed Kayso ahaa beeraha 3 wasiir ma ka soo raacay labadii taliya ciidanna waxa qaatay qolada koonfureed caasimadiina waxa qaatay Muqdisho dawladdii dhammayd Soomaaliland qaybtaas ah maalintaas oo bilaabmay guul iyo caro iyo dareen ka dhashay halka wixii loo soo marina waa haysaanoo akhri doontaan ku dheeraan maayo caradii halka ka dhalatay waxay ku soo gabagabowday 30 sanadood oo aynu isla rafanaynay oo aynaa khayr ku wada joogin ee maalmo baadka dambaysa colaada dilka iyo cunaqabatayntu ay ku socotay Soomaaliland
koob iyo sagaashankii ayay ku burburtay dowladdii habeenkii julaay la isugu tegay ee habeenkaa colaadeeda iyo cadheedu badatay ay bilaabatay intii ka dambeysay oo 3 sannadoodana wixii horay faleen wax ka weyn bay faleen 3 sannadood walaalayaal maanta waxaynu qabsanay iyo taariikhdeena iyo 3 sannadood waxba ku raagi maayo waa ka wada dhegeysantiin adduunkuna ogey laakiin halkay mashkiladu taallo iyo halka dawladda laga doonayo baa sheegaya horta waa mide Somaliland sida caalamku ogyahay haddana aan sheegay maaha dalka goosanaya maaha gobollo dalka goosanaya sida Afrika ka baqato cid waliba waxay qirsatay inay ahayd laba dawlad isu tagay reportkii ay soo saartay uu soo saaray wafdigii African Union uu soo diray 2005 go'aankii ay soo saareen waxay ahayd arrinta Somaliland way ka duwan tahay arrimaha kale ee khilaafka ee Soomaaliya Afrika ka jira waana ku fadhida sharci iyo ahaan moral ahaanba xaq u leh in hartooda dib loo eego way ka soo waad 3 sano ayaynu waxaynu u soo taagnay wada hadal iyo in la isafgarto iyo in dee la kala garbo waabay ka sii dartay koonfuriyo hadda 3 sano intay geysatay ee cunaqabatayn leh ee dhaqaalowdiida ee la dagaalan siyaasi ah malaha hadday nuclear hayaan Soomaaliya ku furahay carada qabaan garan maayo meel ka keenay 3 sano ka daran koob hore wax sameeyay sagaal shir baa la galay oo wada hadal ah muddo 10 sano ah mid walba wixii lagu heshiiyo waa ka baxa kuwii dambeeyay labadii dambeeyayna isafgarawaa iyo fashil bay ku dhawaadeen waayo Somaliland waxay la shirtaysay waxaanu nahay dal xorriyadiisii qaatay inaga idinkaana ka marxaatiya dadnaad inaga isugu dhow oo isku Soomaaliya haddana jaaro waxa wadaagna Soomaalidu Talyaanigu waa inaad idinku koob noqotaan inaad marxaatiga furtaan oo Soomaaliland la taabtaan wax kale oo Somaliland maraya ma jiro muddo kasta qaato iyo wax kasta oo qaado kaarmo ku xilay tusaale yar baan siinay halkay marayaan maanta xasan sheekhi dowladdiisa wuxuu baanka adduunka ku deeqay Soomaaliya oo dhan oo la yiraahdo loo qaybiyo sida dadku kala baday gobolada lacag ku dhow 2 bilyan point 2 bilyan dhibiciyada Somaliland waxay u soo qoorday xasan sheekh iyo dowladdiisa ilaa iyaga annaga nimanka xukuumada Soomaaliya boqolkiiba 6.8 ma waxaasaynu geynaa ma waxaasaynu ku sii jiraynaa aqbal min caalamkana u sheegayna waxaan noo soo maray maaya wada hadallada gaba dhaxeeyo caalamka laga sheegay iyagu say nooga qaaday intaas aan ku dhaafaya qodob kale oo seegay baan u sheegaya qolada Talyaaniga ku santiray waa dhawaato waxa heshiis galay Somaliland iyo Ethiopia qaylo dheer bay ka kaceen adduunka oo dhan bay dhiga barjeeyeen horta waxaan idin sheegayaa intaad garan weydeen idinku inaad taahdaan Soomaaliya laba dowladood isii baan ahay hadday toodi ay la noqdeen oo ayaga xoro waan ictiraafana horta taas ay idin kay kii Soomaaliya toona alla ma wafajina colaad iyo xooba ka sii qaadeen haddaba dalka Ethiopia oo xadka u dheer la leeyahay oo dowladu weyn oo dhaqaale ahaan iyo siyaasadaha aan iskaashanaysan leeyahay waxay ku dhiiratay wixii idinku ka maagteen oo ah Somaliland 3 sano waan la macaamilaynay waxay u qalantahay la aqoonsado annagu waxaan soo jeedinaynaa inaynu wax iswadaagsano idinkuna saldhig ciidan siisaan oo badeed annaguna aanu aqoonsano Somaliland koob ka noqono taasina ku sheegayaan ma وأبدينو شرعي أمباسر كان جوجي كسرة كها أمباسر بحاله waa tallaabo horumareed oo lagu maadnaqayo dowladda Itoobiya inay qaadayso wixii ay qaban qaaday ee iskaashiga ahaa. dowladda Xasan Sheekh waxay adduunka ku dhaga barjaysay ereyga ah haddii MOU waa la saxeexo oo lagu heshiiyo waxa la xabsaan ku hadda dhalinyaradu rag iyo dumar jihaad bay galayaan oo dowladda Itoobiya ee cadawga ee gaalada ay la dagaalamayaan si darteed shabaab xoogaysanaysa mandaqadana qalaasay ayay noqonaysaa. dad badan oo dowladaha waaweyn arrinka aad iyo aad u shaqo waxaa fashiliyay markii Xasan Sheekh gaziiro ka lahaa iyo idaacado kale oo uu ka tarrog lahaa
إن أقول هاي إثيوبيا إن الدول أي كريسة بد صوماليا لكن وأنا إلى صومرتها إذا عذر بقسيدة جزيرة كريسة جزيرة سواء كهذا وحلا يابله وارميك هو نفتي هفر ذلك أو حكومة وكسير يبضل أما ككرير الدولة كسبت الدولة واكرين حرت البنادر ما حكومة بس ويديني wuxuu ku daray inuu safiirkii Itoobiya ka eriyay xaq isagoo Itoobiya uu ka qabsatay Soomaaliland caalamku markaa wuxuu galay jahwareer waliba dawladda ugu tuka waaweyn ee nabadda guud ilaaliya waxa la yiri haddii Itoobiya kala baxdo ciidankeeda oo nabadda u haya amnigooda haya gobolka Hiiraan Bakool Baay iyo Galmudug waa ilaa door ilaa Hiiraan oo iyagu nabadiisa haya hadday ka baxaan saacado ayay xabad ku qabsanaysaa shabaab ma sidaa darteed waxaa loogu weerarada dhicinaya war xagee haddii ay Itoobiya baxdo maxaad daafacaysaa su-aasha ugu muranka badan imika ee caalamku soo diinaya waa taa waxaan ka leeyahay xasan sheekh waa warmoog 3 sano ee u dambeeyay kumanaan Soomaali ah oo Kismaayo jooga oo Baydhabo jooga oo Xudun jooga oo Xamar jooga oo Samareeb jooga oo Gaalkacyo jooga oo Boosaaso iyo Garowe jooga oo Sanaag jooga oo Hargeysa jooga oo Burco jooga oo Boorama jooga kumanaan dhalinyaro oo rag iyo dumar bale oo jaamacadaha Itoobiya ka soo baxay ayaa maanta inta u badan tacliinta iyo caafimaadka iyo shaqooyinka waxa Soomaaliga ku hadlay Soomaaliyada burburtay haya oo aan la marinayn colaadda Itoobiya iyo waxa waxay oo labada shacab ay noqdeen laba shacab oo is-ogol wax wada qabsi iyo iskaashi iyo mustaqbal arkayo waayo jaamacad bay noqdeen suuqad bay noqdeen way isbarteen way isdhexgaleen oo baaxtiraya arooga colaadda iyo dhibku kaliya afufaya waxay ku eg tahay isaga iyo kooxdiisa aan la garanayn xagga u socda waxaan leeyahay heshiiskaasi waa hirgelaya dhowaan haddii aan leedahay soo dhamaaday baa arki doontaan waa huraa muddada uu qaatay waxa weeye muddada ay qaataan heshiisyada culculus oo dhan waxaa loo baahan yahay in dhinac waliba uu iska ilaaliyo waxa uu saxayo ay garyaqaano badan oo caalami ah caalamka sida xeerarka caalamka ee lagu bixiyo sabiyada waxa lagu heshiiyo sida lagu heshiiyo cid waliba waqti way baahan tahay iyo aqoon haddii aan la yiraahdo xaggeena inta badan way ka dhantay diyaar garowga farsamo iyo sharci dhawaan haddii aan la yiraahdo waxa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka Soomaaliya markii uu hirgelayaa kaasoo maanta mawduuca ugu adag ee taagana intaasaan ku dhaafaya doorashooyinka waxaan ka oran lahaa waxaa tegidaahiyaanka doorashada ku gablamiyo qab jacayl bisayl siyaasadeed turxaanta ka ilaalino iyo hadalka kul intaaba waa inoo gudooy waxay ilaahay mahadiya xisbiga wadanina inay fadhiyaan madaxdiisii gudoomiyihii iyo murashaxiiba jaalaya walaalayaal asaas inoo gudooy xagga waxaan ku darayaa haddii la tartamo wax kastoo la ciyaarayo laanuuna ha ahaatee dee laba qofooda guulaystaan haddii wax loo tartamo oo madaxdooda loo tartama miduma ku guulaystaan labooda guulaysan maaya waxaan leeyahay Cabdiraxmaan oo aniga adigu dalka qaranka inuu keen laga helo ha haniyeeyo buuq dambe uu jiro oo difaac ku wada hadasha dadku dhawrana maqlaya taasaan ka eeg waxaan aad iyo aad u hambalyeelayaa ciidamada qaranka oo had iyo habeen hawshay qabtaan ay wadaognahay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeelayaa halka ay dalka ka jiraan kala duwan ciidamada oo dhan amni iyo difaac iyo maxaan ku rahdaa mulada socdaalka badda isku wada dal aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa
ولا جاي على ذات كبد كل يعني أول درسان اللي ما كان سهوش هي أمانة يقولون ولا جاي على واحد شنا إمكانين تابرة أو شوجا حرام بالديرة تابرة إذا ما أو أريا كنت يلو سرقون تابرة إلا يمكن تابرة وشقي ودير بس حتى إنه بنشدرون أو برتون سنة وديدي وحرام لها رجل صار تابرة لما شبهده تريه تابرة كبرك أي دون شيء شبهده أنت أصلاً بكسر صار قلت مركو العيدة قرانا نفتي سنة مدنية عروتي سنة مدنية عروت السومال لا والله مدنية دراها السومال قرق مدنية كوش إلهي ما لجنا ما كان سعى تذكر عين كان نفتروا إلى الآذية النورهم لما انتهي أي نبوها معي مرة ما وحنا برينا دمان شعب السومال الميل أي شولان ويدرب وحالوا قبصنا ولا مقبصنا ولا ليا وحي نويا لا وحي نقدر إلى مقبصنا waxaan ku talinayaa dadkeenu inay ka baxaan maskaxda hana la caawiyo ilaah waa caawiyo aad buu caawiyo waxaan doonayaa Soomaaliland aad tuugsanay qayrkeed ee tabcanaysa oo tabtanaysa ay doonayaan walaalayaal ninka dayaxa ku degay ama gabadha dayaxa ku degtay ka maskaxda qara ka wadnaha macmalka sameynaya ka waxaan oo la yiraahdo qalab dagaal ee drones ee maxayna sameeyay sagaal bilood ku gashay ma inaga sidaas ku dhalanay maxay dadka u bari meeynaas ka hor dhalan miyuu naga labiya miyuu naga aqli badaya waynaga halkaas waa inay maskaxdeena ka saaraacideen caawi adduunyada waa la tartamaynaay bariyo ilaahay waxa Soomaali ina siiyay macdan bad xoolo dad wanaagsan dal wanaagsan oo adeerkeen goor iyo jira wax laga qabsan karo marka way nagu ceeb ilaahay ida badan inoo soo tartamaano ay leedahay waardo caawinayna waxa layna siinayaa uu yahay cad qureed waa cad qureed markay yaqaano qolada aad iyo aad islaamka salaada ugu wanaagsan ee jibeysan ee haddana hay'ad ku waar waxa laga soo ururiyaa meelo diin aan islaamka aan ahayn marka diin loo eega miyaa marka la doorsanayo wax laga soo qaadanayo marka dadka waxa loo leeyahay diin saaysa u raac diinteenu waxay tiri gacanta saraad ka wanaagsan gacanta hoose wartaa Soomaaliland waa inay qaadataa oo aan lagu jaarin hay'adaha kala loo ibraay oo qofka ka gudtada intaasina waa dardaaran waxaan marnaa boodinayaa daayarta intii dadka xorey dhalatay fikradooda halka ka guurto yaanay ku habsaanin waxyaalaha aan khayrka lahayn ee qaada ee balwada ee tororada ee qabyaaladii oo sheegay daahiyad sheegay sida uu sheegay inta bay idinka ka rabaa inaad xorowdaan mustaqbalka dadkana idinka areeyo dadka waaweyn waxa jira waa dardaaran taas aan ku dardaarmaya mar labaad hambalyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh